cali jeete cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka codsaday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe in la soo xiro xildhibaan xusul waxa uu yiri waa argagixiso waxaan eegi doonaa waaran loo jaray xusul iyo warar sheegaya in xerilaalintu su'aalo ay weydiinayso xilligan kadib markii lagu helay cadeemo sheegaya in xusul uu halis ku yahay qaranka Soomaaliya sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa warar xasaasi ah oo sheegaya in xildhibaano kala dabagal lagu hayo xilligan kuwaas oo qaarkood cadeemo lagu helay waa war degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-keena Facebook follow soo dheh muuqaalkan like saar siina share garaysi saaxiibo badan oo sidaadoo kale ay u gaaraan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah ee aan halkan ku soo gudbino aad baad u mahadsantiin dhammaantiin muuqaalkan like saara waa muhiim waxaan ku bilaabayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday xildhibaan xusul oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhawaan ayay ahayd markii warbaahinta uu mariyay hadal xasaasi ah xildhibaankan haatan weerarka lagu yahay waxa uu ka hadlay dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadka macawisleyda iyo ururka hubeysan ee Al-Shabaab xusul waxa uu sheegay in maleeshiyaadka macawisleyda ay ka daran yihiin Al-Shabaab isla markaana xasiloonida dalka ay caqabad ku yihiin wixii intaasi ka dambeeyay dagaal siyaasadeed ayaa ka dhex qarxay isaga iyo sidoo kale Cali Jeete waxa uu sheegay in xildhibaan xusul uu yahay Al-Shabaab isla markaana uu ka codsanayo gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe in xildhibaankaasi xabsiga la dhigo maadaama arrimo xasaasi ah uu ka hadlay isla markaana uu garab siiyay ururka hubeysan ee Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay Sheekh Aadan Madoobe ayaa haatan xiisadaasi ku baxay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeetana waxa uu ku hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono xildhibaankaasi maalinta uu cagta soo dhigo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hanjabaad ay hawada isku mariyeen xildhibaan xusul iyo Cali Jeete waxa ay sii xumaysay xiisada xilligan u dhaxaysa labadaasi mas'uul xildhibaan xusul ayaa beel ahaan waxa uu markaasi ku matalaa baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arintan waxa ay keentay in muddooyinkii la soo dhaafay uu ka hadlo dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadka macawisleyda iyo sidoo kale ururka hubeysan ee Al-Shabaab dagaalkaasi oo xoogiisa uu ka soconayo duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warar iyo xogo lagu kalsoonaan karo waxa ay sheegayaan oo laga soo xigtay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete in xerilaalintu su'aalo ay xilligan weydiinayaan xildhibaan xusul kadib markii lagu helay sida la sheegay cadeemo sheegaya in xusul uu xilligan halis ku yahay qaranka Soomaaliya sida uu shaaca ka qaaday Cali Jeete sidoo kale warar xasaasi ah ayaa sheegay in xildhibaano kala dabagal lagu wado kuwaas oo qaarkood cadeemo lagu helay isla markaana loo maleynayo inay gacan saar la leeyihiin ururka hubeysan ee Al-Shabaab arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dagaal culus oo u dhaxeeya maleeshiyaadka macawisleyda oo dhinaca ciidanka dawladda iyo sidoo kale Al-Shabaab waxaana arintan ay keentay hadalheen xoogan inay markaasi ka abuuranto baraha bulshada xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dhawaan waxa uu sheegay in ciidanka macawisleyda ay ka daran yihiin ururka hubeysan ee Al-Shabaab mustaqbalka dhowna ay caqabad ku noqon doonaan dawladnimada Soomaaliya marka loo eego hadalkiisa waxa uu ka hadlay xildhibaanka fikirkiisa hase yeeshee hadalka Cali Jeete waxa uu muuqdaa mid weerar ah isla markaana uu xilligan ku weerarayo xildhibaankan qaran haddaba daawade aragtidaada sidee u aragtaa dagaalkan siyaasadeed ee soo kala dhexgalay xildhibaan xusul iyo Cali Jeete Cismaan aragtidaada qaybta hoose commentiga waad uga soo dhiiban kartaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.